السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هانتي مeel kastood ku sugantiin waxaad ku soo dhawaataan bartana YouTube kan ugu magac darnay Awesbro. haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, sidoo kale barta fariimaha ay commentiga noogu reeb fikradaada, sidoo kale like tan inoo raaci si aan hor ugu sii socono. ku soo dhawaada barnaamijkeeni maanta waa aniga Aweys Xuseen Usmaan la socod wacan ninkii haatan kusoo dhawaataan xubinteena sportska inoo soo diyaari aniga Aweys Xuseen Usmaan. haddii aan ku bilaawno horyaalkaasi Serie A dalka Talyaaniga kadib markii kooxda Juventus 4-2 lagaga badiyay waxaana ku badisay dhigeeda kooxda AC Milan kadib markii kooxda AC Milan ay hurdageysay dhigeeda kooxda Juve. haddaba horyaalka kooxda Juve ayaa hogaaminaysa iyadoo ay dhibcaha haysatay tahay 75 halka Lazio ayaa ku soo xig Lazio ayaa iyadana 2-1 lagaga badiyay waxaana ku badisay Linis. Lazio ayaa ku soo xig kaalintana labaadna kaga jirtay horyaalkaasi dalkaasi Talyaaniga ee Serie A. haddaba Serie A Talyaaniga ayaa wali faranka qodnayn taasoo ay dhibco yar kooxaha isugu jiraan. sidoo kale kulan adag ayay ciyaareen kooxda Roma iyo kooxda Napoli. ciyaartaas ayaa waxay ku soo ilaatay halka Napoli ay guusha ku raacday 2-1. haddaba horyaalkaasi Talyaaniga ayaa meel xasaasi ah maraya iyagoo kooxo ay isugu jiraan dhibco aad iyo aad u kooban. haddaba haddii aad isleedahay kooxdaas ayaa ku guuleysan karaysa barta fariinta inoogu reeb commentiga. haddii aan u gudubno horyaalkaasi Ingiriiska imikan haddii aan u gudubno horyaalkaasi Ingiriiska kadib markii kooxda Liverpool ay la kulantay dhigeeda kooxda Brighton 3-1 ayayna kaga badisay dhigeeda Brighton. Liverpool ayayna guusha ku raacday. sidoo kale kooxda Manchester City ayaa wacdaro dhigtay kadib markii 5-1 ay dirtay dhigeeda kooxda Newcastle. alaleeyahay kooxda Manchester City ayaa toddobaadkan wacdaraan caadi ahayn dhigaysa. horyaalkaasi Ingiriiska ayaa ku guuleysatay kooxda Liverpool kadib markii dhibco aan macquul gal ahayn kaga qaaday dhigeeda kooxaha kale. hase ahaatee waxay u tartamayaan kooxaha UEFA Champions League sidii ay uga soo qayb gali laayeen. alaleeyahay waa la isku cidhiirinayaa booska UEFA Champions League asayaas ku guuleysan doona koobkaasi ka soo qayb galkiisa. haddii aan u gudubno horyaalkaasi Spain kooxda Real Madrid ayaa hoggaan ku haysa horyaalkaasi iyadoo ay ku hogaaminayso 77 dhibcood halka ay Barcelona ay ku soo xigto iyadoo ay haysato 76 dhibcood. haddaba Real Madrid ayaa u harsan kulan baaqiya kulankaasna waxa ay la leedahay dhigeeda kooxda Deportivo Alaves halka xalay Barcelona ciyaartay ciyaar aan caadi ahayn kadib markii ciyaartaas ay ku soo ilaatay 1-1 ay Barcelona ku badisay. Ansu Fati ayaa daqiiqadii 52 qaatay kaarka casaanka kadib markii uu foul u geystay. haddaba horyaalkaasi ayaa kaalinta saddexaad kaga jirto dhigeeda kooxda Atletico Madrid iyadoo kulankii ay la ciyaarto Celta Vigo ay ku soo ilaatay 1-1. haddii aan u gudubno dhanka goolasha ee horyaalkaasi Spain waxaa hogaaminaya Lionel Messi isagoo haysta 22 gool halka Karim Benzema uu ku soo xigo haysto 17 gool. Lionel Messi ayaa sanadii hore ku guuleystay kabta dahabka sanadan ayaase ku guuleysan doona sanadan isagoo Cristiano Ronaldo uu ku cariirin jiray. Cristiano ayaa ka shidan Serie A dalka Talyaaniga. waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan sportska aad kala socoteen bartana YouTube kan ugu magac darnay Awesbro. haddaba waxay naga codsaday inaad inoo saarto subscribe sidoo kale barta dhiirigelinta like taad inoo raaciso halkaad kala socoto waa Awesbro. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.